saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay hub ay sheegeen in ciidanka booliiska uu ka soo qabtay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho kadib markii sida ay sheegeen uu talisku hawlgallo ka sameeyay qaybo ka tirsan deegaankaasi. Taliyaha saadka ee ciidanka booliiska Soomaaliya ahna taliyaha hoggaanka dambi baarista General Abdullahi Xasan Bariise oo warbaahinta kula hadlay xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee General Kaahiye ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabkii ay gacanta ugu soo dhigeen hubkaasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qorogan aad u jeedin waxa la yiraahdaa 120 janta binti millimeter waaye rasaasta ka dhacda la yiraahdaa lambarkaas waa hoobiye Soomaaliduna hoobiye u taqaana murtaayana waa la yiraahdaa. qorogan kale waxa la yiraahdaa Iskar 43 asaguna wuxuu qaataa xabadaha waxa taqaaniin dabajeex oo qaataa labadaba ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu yimid report ka hadlaayo in hubkaas cadawgu oo horena u isticmaali jiray haddana u diyaarsaday maadaama uu muxuu ahay nafl caari noqday oo beryahan ay kala carar ku jiraan waa la duugay waa la karfaniyay sidoo qof bini aadan oo la duugayo waxa la geliyay god wuxuu baalkaanu yiilay marka laga tago ceelasha biyaha ee loo dhaqaaqo dhinaca waqooyi meel la yiraahdo Jabadgeel halkaas oo u aheeday cadawga ummadda Soomaaliyeed fariisin ku meel gaar halkaas laga soo bixiyay nasiib wanaag muxuu ahay ummadii ay ku waxyeelayn lahaayeen iyo kuwa hore u waxyeeleenba maanta gacantii booliiska uu soo galay. Maxamed Bilegele, Somsa TV, Muqdisho.